dhirbaaxada sokeeyey iyagu moodayaan dheefe dhowdooda qaraxyadu shacbiga way dhantaaleen dhankiisii shabaabay cilmiga waa ka dheertiine halkuu malab dhadhami jiray dhanaan baa tufaysaane dhibaatada sokeeyaa darajaa ka dhigataane dhabannadan gacmaa saaray waar iyo dhafoorkiiye waa dhaygagiyo yaab ahay dhegola'aantoodu dhabarkay ka jabeeyeen bulshada dhawri maayaane بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ما في هذا الشباب وحدوان أرورسي علماء كنا لدينا مذوذا سي فتوى أصو سعران وحا إسويدين مذن maxaa ku kalifay maafiyada inay xilligan fatwa ka talbadaan culamadooda sidaad la socotaan maafiyada waxay wajahaysaa maalmahan dagaalo culus uga imaanaya dowladda iyo xulafadeeda dhowr deegaano ayaa laga bixiyey maafiyada bilooyinka la soo dhaafay waxayna dareemeen khatar weyn sidaas darteed waxay soo saareen fatwadaas ayagoo ku cabsi gelinayaan muslimiinta waxay kaga hortagayaan fatwadaas inay muslimiinta soo dhaweeyaan ciidanka dowladda ee kala wareegaya deegaanada ay ka talin jireen inta maafiyada la aasaasay ilaa iyo hadda culamadooda waxay shir noocaas oo kale qabteen 3 jeer keliya waana markasta ay guuldaro wajahayaan kulanka koowaad wuxuu ahaa 2012 markii muqdisho laga saaray midda labaadna waa 2014 markii laga saaray magaalooyinka waaweyn maafiyada waxay si dhab ah u ogaatay in shacabka uusan dhageysanaynin warka ka soo baxa hogaankooda xeelada kaliya u harsan waa culimada la shaqeeya iyo ku been abuurka diinta islaamka sababtoo ah way og yihiin in shacabka uu ixtiraamaya wax kasta oo diinta xiriir la leh gaar ahaan culimada waxaan xasuustaa 2012 shirki koowaad ee culimada maafiyada ay qabteen kadib nin ka qayb galay shirkaas ayaa weydiiyey shirkiina ma sanad laba ama marka la idin baahan yahay kaliya wuxuu igu jawaabay haa sanad walba waan shiri doonaa waxaan ku iri xarakada way idinku ciyaaraysa waxaad shiraysaan kaliya markay rabto ee idin baahan tahay waana sidaas ay noqotay maafiyada waxaa la aasaasay 2008 waxay shir u yeelan waayeen an culimadaas ilaa xamar laga saaray shirka kan ka horeeyay waxaa la qabtay 2014 6 sano ka hor culimada masaa'il ay ka niqaasheen may waayeen muddo 6 sano ah taas waxay tusaysaa inaysan hor ahayn culimadaas goorta ay ayaga rabaan ma kulmi karaan waxayna rabaan ma ka hadli karaan waxaan xasuustaa 2013 markaan xaqa u cadeeyay muslimiinta kadib waxaa hal maalin masaajidka ka istaagay sheekh jaamac cabdisalaam oo yiri kaliya in kitaabka Allah lagaga baxo khilaafka hadalkaas kadib maafiyada waxay wiilal u dirtay sheekha oo ay hanjabeen ilaa uu iska aamusay mar dambena kama hadlin xataa markay maafiyada dishay Ibrahim Afkan iyo Burhan culimada way ka aamuseen dhalinyarada oo ka soo horjeestay kaliya ayaa xabsiga la taxaabay علماء ربانيين حداتهين waxaad la idin karaba inaad ka hadashaan dulmiga ee maafiyada ku hayso muslimiinta waxa la idin karaba inaad ka hadashaan qaraxyada ay ku xasuuqayaan shacabka aan waxba galabsanin waxa la idin karaba inaad fatwo soo saartaan oo aad muslimiinta u cadeysaan in baada ay maafiyada muslimiinta ka qaadanaysa ay xaraan tahay waxaa la idinka rabaa inaad soo saartaan fatwo cadeynaysa inaysan banaaneen in qof muslim la tacdiibiyo ilaa uu ka qirto dambi uusan gelin inaad soo saartaan fatwo cadeynaysa inaysan banaaneen in qof muslim la gaalaysiiyo
ayadoon la fiirinin shuruudaha takfiirka iyo mawaaniciisa. fatwada ay soo saartay maafiyada waa fatwo ay ku gaalaysiinaysa dhammaan bulshada ku nool meelaha ka baxsan dhulkooda. fatwadaas waxay ku bannaysteen dhiiga shacabka aan waxba galabsanin. markaan arkay halista ay fatwadaas ku leedahay muslimiinta, waxaan go'aansaday inaan radiyo fikrikooda takfiiriga ah oo aan muslimiinta u caddeeyo in fikirka maafiyada al-shabaab uusan shaqo ku lahayn manhajka ahlu sunna waljamaaca. ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu i waafajiyo xaqa si ay muslimiinta u arkaan wajiga dhabta ah ee maafiyadan xarakatu shabaab almufsidiina fi ddiini wadunya. hadduu ilaahay idmo waxaan dul istaagi doonaa qodob walba oo muhiim ah ku jiray fatwadaas. maanta waxaan ka hadli doonaa mas'alada alxukmu bigayri ma anzala allah. fatwada waxaa ka mid ahaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku caddeeyey xukumka uu soo dejiyey inuu cibaado yahay. wax alla wixii xukuma xagga rabbi ka yimid oo awaamirtiisa waa cibaado. wixii uu soo dejiyey wixii aan ahayn oo qaanuun iyo lagu dhaqmo ahayna waa kufri wey. in ilxukmu ilaa lilah, xukumka ma laha ilaa ilaah koomka iskale mooyaane. cid kale xukum ma ridi karto wey, ma samayn karto. in ilxukmu ilaa lilah amara an laa tacbuduu ilaa iyaahu, wuxuuna amray inaynan caabudin cidaan isaga ahayn. ilaah wuxuu yidhi mawduuca inagoo gabagabaynayna, waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lfaasiquun. fisqiga iyo gaalnimada noocaasi markaa dadka ay sida tooska ugu dhacayso usoo hoosgelahaya waa ilaa 7 qolo baa la odhan karaa oo meeshan hadda inoogu sugan. qolada koowaad oo xukunkaas uu qabsanaya waxa weeye xaakimka isagu sharciga dejinaya, ama nimankan maaragtay sharci dejiyaasha isku magacaabay ha noqdo, ama xaakimka amray oo isagu sharcigaas in la dejiyo ama lagu dhaqmo oo loo doortay oo madaxweynaha ha noqdo. sharci dejiyayaasha weeye qodobka koowaad. qodobka labaad waxa weeye ninka isagu sharcigaa fulinayo xukumaya, dadka ku xukumaya wixii ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn. wuxuu qaanuun noqonayaa dabcan markii dadka isku si loogu xukumayo. dembigaa qofkii gala kan damo imaan doona kii kasii horreeyey kullin halkaa nidaam baa la marinayaa. awoodna waa loo isticmaalayaa ciidan fulinayo oo loo habeeyey iyo waxaasuu leeyahay iyo qaadi xukuma. marka waa qaanuun wey. kan saddexaad waxaa weeye almutaxaakimu biikhtiyaarihi, ninka isagu ikhtiyaarkiisa ugu xukum tegaya waa kan saddexaad wey. kan afraad waxa weeye alladii yufadilu xukma dawaaqiit, ninkaan mana xugum tegin mana dejin, laakiin wuxuu leeyahay nidaamka dawaaquutiga ayaa ka wanaagsan kan islaamiga ah. kan shanaad waa mucadil liaxkaami illaahi wa xuduudihi, oo wuxuu leeyahay sariqo iyo zine iyo waxaas maanta in la fuliyey iyo jaraa'imtaas wax dadka maaragtay in la ciqaabo maanta ma aha. marka wuxuu soo geliyaa fatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin, qofka noocaas u fakerayahay. kan lixaad waxa weeye almumtanicu can ataxaakumi ilaa sharci illah, qofka diidan inuu u xukum tago sharciga ilaahay. ilaah wuxuu yidhi wayaquuluuna aamanaa biاllahi wa birasuuli waadacna huma yatawallaa fariiqu minhum min bacdi dalik. ilaah baan rumaynay, rasuulkaan rumaynay, waa adicnay bay leeyihiin, haddana qayb ka mida waa jeensanaysaa min bacdi daalika, harka go-aankoodii kadib way ka jeensanayaan xukumkii ilaahay. wamaa ulaa'ika bilmu'miniin buu yidhi ilaahi subxana wa tacaala, kuwaas mu'miniin maaha. dayna ahayn maxay yihiin gaalay noqonaya. qolada u dambayso 7 waxa weeye kullu man yukaafixu wa yudaaficu can ilmaxaakimi alwadciya, qof kasta oo u halgamaya inuu difaaco maxaakimta gacan ku samayska ah ee wadciga ah iyo xukaamteeda iyo arrimaheedu difaacaya iyo dowladaheeda. wuxuu tahbiitinayaa oo xoojinayaa oo quweynayaa dowladdaas daaquutiga cilmaaniga siday u dhisnaan lahayd ama dimuqraadiyadda wasla meeshii iyuu aad iyo aad ugu halgamaya. qofka noocaasi marka hadduu rabo ciidan ha ahaado ama tujaariya ganacsada ha ahaado ama zucamada dadka odayaasha salaadiinta ha ahaado qabaaisha, ama wuxuu rabo ha noqde, qof kasta oo ka qeyb qaata sidii xukunkaas ku hirgeli lahaa daaquutiga ah ee dimuqraadiga ahi, xukunka ayuu soo gelayaa. gaalnimadaas way qabsanaysaa. haddaba aan fiirino hadduu sax yahay xukumkaas iyo in kale. aan fiirino culammada islaamka naga horeeya waxay ku fasireen aayadda waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun. intaanan gudagelin tafsiirka waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo in arrinta shareecada in qaar ka mid ah axkaamteeda aan lagu dhaqmin inuusan wax cusub ahayn.
sidaa dhacday zamankan waxay sidaas oo kale dhacday mar hore xilliga khilaafada muslimiinta ee jirtay. ma arkin mana maqlin caalim ka mid ah culamada islaamka oo gaalaysiinaya xukaamtaas ka tegida shareecada qaarkeed darteeda. ibn taymiya wuxuu leeyahay qaala ibn taymiya fi majmuuci alfataawa falama saarat alkhilaafatu fi walad alcabaas واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق ولم يكن ما معه من العلم كافيا في السياسة العادلة احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم وجعلوا ولاية الحرب غير ولاية الشرع وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال الشرع والسياسة وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات. والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يصوصون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحرى العدل وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك. وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب الكتاب ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم. وقد قال الله تعالى في كتابه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الآية فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بالله هاديا ونصيرا. ودين الإسلام أن يكون السيف تابعا للكتاب. وحلايه ابن تيمية خلافة بن العباس وحي سياسة إيو جهاد كسارين شريعة وحي سياسة إيو جهاد كسابسا وحي كو حكم جيران رأي قودة شريعة وكو حكم جيرين هر إيقارين مسلمين تا قار شريعة و حكم تجي جيران قارنا سياسة او حكم تجي جيران ساس اي تهي ابن تيمية وحلايه ان كوا سياسة كو حكما كوا دا اغفيان وكوي عدالة كود ذاله مركا علماء ما في هذا وحن كتل بنايا ان نو شيغان هل عالم او علماء المسلمين تكمد قاليسيه خلفاء ذاس haddaynu keeni waayeen fatwo kale ha soo saaraan oo ay muslimiinta ugu caddaynayaan in khulafadaas ay murtadiin ahaayeen iyo qaadiyaashooda iyo kuwii siyaasadda u xukun tegi jireen oo aan shareecada u xukun tegi jirin. taasna hadday samayn waayeen waxaan ku leeyahay ilaahay ka cabsada muslimiinta hamarin habaabinina waxaa idin ron inaad iska aamustaan. هذا وحن إذن أخرنا أقواش علماء سلف كأه كفسرين آيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن جرير الطبري في تفسيره القول في تأويل قوله عز ذكره ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره ومن كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكما بين عباده فأخفاه وحكم بغيره كحكم اليهود في الزانيين المحسنين بالتجبيه والتحميم وككتمانهم الرجم وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة وفي بعض بنصف الدية وفي الأشراف بالقصاص وفي الأدنياء بالدية وقد سوى الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة فأولئك هم الكافرون. يقول هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه
ولكن بدلوا وغيروا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه هم الكافرون. يقول هم الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه وغطوه على الناس وأظهروا لهم غيره وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا الموضع، فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك من أنه عانى به اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه. إمام الطبري وحو قبائن قوى قالوا بأيهن قوى حكم كإلهي ودجي ددوينها كقرية كنا بدل رأي قودة يو حكم كودا سيدي يهودا سميان مركي حكم كرجمي نبيغا كقريان أيغو موجينايان إن حكم كودا عصب ويهي مدك إلهي ودجي كنا قرنا توراتك. قال ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. يقول من جحد من حدود الله شيئا فقد كفر. ابن عباس وحليه قفكي حكمك إله إنكري وقالوا بي قفكي قرت لكن عنكو حكم وظالم فاسق قفكي حدودك إلهي مد إنكري وقالوا بي معناها قفك وحكو قالوا بايا هدو إنكرو إنو واجب يهي إن شريعة لغو دقمو قفك عن إنكرين لكن عن قدقمين ما قالوا بايا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ ابن الفرج حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يقول في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال من حكم بكتابه الذي كتبه بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر. ابن زيد وحيري قفك كو حكمو كتاب وإساقا قعنتيسا كو قري كانت تغي كتاب كألا كدب شاكتي إن كتاب كيسا وحق إلهي كيمد وقالوا بي. وسيدي يهودا أي سميان حكم كود وحي كدقان حكم كأو إلهي دجي تاس عيالو قاليسية لكن قف حكم عصب ليمد وأن إلهي ونسبين ما قالوا بايو. قال أبو بكر الجصاص في كتابه وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله قال ابن عباس هو في الجاحد لحكم الله وقيل هي في اليهود خاصة. وقال ابن مسعود والحسن وإبراهيم هي عامة يعني في من لم يحكم بما أنزل الله وحكم بغيره مخبرا أنه حكم الله تعالى ومن فعل ذلك فقد كفر. وحلايا ابن عباس وحي كسو دكتي قفك انكراء أن إلهي حكم كيسا. ابن مسعود يو حسن يو إبراهيم وحي دهان وحي كسو دكتي قف والباء كو حكما حكم عن كي إلهي أهين شاقنا إنو حكم كإلهي يهي أن قفكاس وقالوا بي معناها قفك عن شاقن إنو حكم إلهي يهي ما قالوا بايو. قال فخر الدين الرازي في تفسيره قال عكرمة قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله تعالى ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية وهذا هو الجواب الصحيح والله أعلم. وحو صحيحي قولك عكرمة وله أعياد وحي قبسانيسا أن قفك قلبي يعرب كيسبه كو إنكري حكمك الله قفك عن سيداس يالين لكن اللي يمد حكم كدوان كان إلهي أعياد ما قبسانيسو.
قال العز ابن عبد السلام: من لم يحكم به جاحدا كفر وإن كان غير جاحد ظلم وفسق. wuxuu yidhi qofka aan ku xukumin ilaahay kitaabkiisa isagoo inkirsan wuu gaaloobaya, hadduusan inkirsaneen wuxuu yahay daalim iyo faasiq, macnaha ma ku gaaloobayo. qaala alqurطubiy fi tafsiirihi qowluhu tacaala: waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum alkaafiruun والظالمون والفاسقون نزلت كلها في الكفار. ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم، وعلى هذا المعظم. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. وقيل فيه إضمار، أي من لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد، فالآية عامة على هذا. wuxuu leeyahay aayadaha waxay ku soo degteen gaalada oo dhan, laakiin qofka muslimka ah ma ku gaaloobayo, laakiin dambi weyn ayuu galay. qofka ku gaaloobaya waa kan inkire kitaabka iyo sunnada. qaala ibnu juzay fi tafsiirihi: waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum alkaafiruun. وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان. وحلايه ولماذا قال وحدهن آية وعام وحي قبسنيسا قف والباء عن كل حكم كتابك يهود هذا أما مسلم أما غير كودبه، laakiin gaalnimada la sheegaya hadduu muslim yahay ma ahantii iimaanka looga baxaya waa dambi. qaala ibn kathiir fi tafsiirihi: waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum alظaalimuun. وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرئوا عليه، فإن عندهم في نفس التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النضري من القرذي ولا يقيدون القرذي من النضري، بل يعدلون إلى دية، كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحسن، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقال ها هنا: فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدى بعضهم على بعض. wuxuu yidhi sababta ay yahuuda ku gaaloobeen waa inay inkireen xukumka alleh. qaala ibn kathiir fi tafsiirihi: yukhbiru tacaala can alyahuud calayhim lacaa'in allah ana minhum fariiqan yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi wayubadiluuna kalaam allah wayuziluunahu can almuraadi bihi liyuuhimuu aljahlata annahu fi kitaab illahi kadalik wayansibuunahu ila allah وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله، ولذلك قال: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. meeshan wuxuu ku cadaynayaa sababta ay yahuuda ku gaaloobeen. waxay dadka u muujiyeen in xukumkooda uu yahay kan ilaahay uu soo dejiye, uu yahayna waxa kitaabkiisa ku qoran. qaala ibn taymiya fi majmuuc alfataawa: وذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده، أي يطلب الذنب بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم. هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ومن نحو قوله: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومن نحو قول ابن عباس:
في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. إمام أحمد وحو قبائن قفك زينيستي يو كان وحذي يو كان خمر عبي يو كان كحكمي وح عن كتابك إلهي أهين إن اسكو حكم يهين معناها مؤمنين أو إيمان دمستران معهن لكن مسلمين وعي أن قال معها. إمام أحمد وحو عديه إن معناها قال لماذا آيات كهد ليس إيسان أهين تان دينتا لوغبحايا. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى وإذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة، وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. ابن تيمية وحو راعي علماء قبان إن قال لماذا أي آيات كهد ليس إيسان أهين تان دينتا لوغبحايا وحنا عدي إن قول كاس يهي كان علماء أهل السنة أي قبان. قال ابن تيمية في منهاج السنة ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثير من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم. ابن تيمية وحو leeyahay qofka aan aaminsaneen inay waajib tahay in kitaabka la isku xukumo waa gaal, qofka banaystay inuu dadka ra'yigiisa ku xukumo waa gaal. macnaha hadduu qirsan yahay inaysan bannaaneen ma gaaloobayo. iltizaamka uu sheegaya wuxuu ka wadaa ictiqaadka, macnaha odayaasha ra'yigooda ku xukumaan hadday og yihiin inaysan bannaaneen arrintaas oo aysan qirsaneen inay waajib tahay in kitaabka lagu dhaqmo way ku gaaloobayaan. haddaysan ogeen xukumkaas jahli ayaa loogu cudurdaarayaa, lama gaalaysiinayo. macnaha qofka qaanuun ama xeer jajab ku xukumaya lama gaalaysiin karo ilaa la ogaado an ictiqaadkiisa. في معجم لغة الفقهاء وقولهم التزم أحكام الله أي أقر بوجوب الأحكام عليه. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان فإن المنافق يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهرا وباطنا وهو في الباطن غير ملتزم له. معناها التزامك واعتقاد iyo qirasho ma ahan in camalka la laazimo sida dadka qaar ay khalad ugu fahmeen. taas waxay ku saabsaneed in qofka wax xukumayo. hadda aan fiirino xukumka kuwa wax aan kitaabka alle ahayn uu xukum tagaya. ibn Taymiyyah wuxuu yiri asoo hadalkiisa sii wata وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. wuxuu yidhi ibnu taymiya qofka aan aaminsanayn inay waajib tahay in kitaabka loo xukun tago mu'min maaha. culamada maafiyadana waxay sheegeen in qofka uu ku gaaloobaya uu xukun tegidda keliya. qofka qirsan inay waajib tahay laakiin hawadiisa raaci oo ilaahay caasiyey waa qof dambi gaalnimo kuma dhicin. kadib wuxuu radiyey sheegashada khawaarijta ay xukaamta muslimiinta aayadan ku gaalaysiinayaan. qaala ibn al-qayyim fi madaarij as-saalikiin: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. ابن القيم وحلايه قفك قرسان إني واجب تهي إن كتابك لغو دقمو لكن كلا حذي مركو حكمي أساقو أقونسان إنو عقابك الله متيسته والدنبي دينتا أن كما بحايو. قفك أن قرسانين إني واجب تهي oo aaminsan inuu khiyaar leedahay hadduu rabo uu ku xukumayo, hadduusan rabin wuu ka tegi karaa, qofkaas wuu ku gaaloobaya. hadduusan ogeyn khalad uu gelay ma ku gaaloobaya, macnaha ana jahli ayaa loogu cudurdaaraya. waad aragteen in culamada maafiyada ay raacsan yihiin fikrika khawaarijta oo ay khilaafsan yihiin culamada islaamka oo dhan. sida laga fahmayo aqwaasha culamada islaamka, qofka ku xukumo wax aan kitaabka alla ahayn saddex aqwaal ay ka qabaan. qaar waxay qabaan in hadduu muslim yahay ma ku gaaloobayo laakiin dambi uu gelay. qowlka labaad wuxuu ku gaaloobaya hadduu inkiro inay waajib tahay in xukumka allah lagu xukumo, macnaha aan kufrigiisa waa kufri ictiqaadi ah. qowlka saddexaad wuxuu ku gaaloobaya hadduu ra'yigiisa iyo qaanuunkiisa ilaahay u nisbeeyo oo uu sheegtay in xagga ilaahay uu ka yimid xukumkaas. sidaad arkaysaan ma jiro qof culamada muslimiinta ka mid ah sheegay in mujarad in lagu xukumo sharci khilaafsan kitaabka lagu gaaloobayo. taas waa fikirka abu moxamed almaqdisi, daacish, alqaacida iyo al-shabaab oo raacay fikirka khawaarijta. aqwaasha culamada waaweyn ee islaamka marka la fiiriyo, dowladda soomaaliya lama gaalaysin karo ilaa nimanka ka mas-uul ah oo ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee shareecada inkireen ee dhaheen inuusan waajib ahayn in lagu dhaqmo, ama ee dhaheen in qawaaniinta ay ku dhaqmayaan ay yihiin xukumka ilaahi ama ay ka fiican yihiin kitaabka ilaahi. hadalladaas haddii laga waayo ma bannaana in dowladda la gaalaysiiyo. gaalaysiinta ee maafiyada ku gaalaysiinaysa dowladda shareecada ma waafaqsana, waa hawraacnimo iyo khawaarijnimo. runtii waa wax laga xumaado in culamada maafiyada ay marin habaabiyeen dhalinyarada islaamka iyo odayaasha qabaa'ilka
aan diinta waxba ka aqoonin ilaa heer ay gaareen inay isgaalaysiiyaan. ridaba lagu dhaca mise laguma dhicin wax la isweydiinaya maaha, waa la ridoobay. odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay, amaad arkaysaan in maafiyada al-shabaab ay qaybisay qabaa'ilka Soomaaliyeed. qaar ayada raacsan ay muslimiin ka dhigeen, kuwa aan raacsaneen ay gaalo ka dhigeen. beel walba laba ogaas uu leeyahay, mid ay sheegatay inuu muslim yahay, kan kale inuu gaal murtad yahay. haddaadan baraarugin xilli ayaa imaanaya oo hal qabiil isdagaalaya, qaarba qaarka kale gaalaysiinaya. fatwadan waxaa lagu gaalaysiiyey qaybaha bulshada oo dhan, wax laga reebay ma leh. xataa qofka jahli looguma cudur daarin, ilaa dadka ku nool meelaha ay maamulayso maafiyada, taas oo macnaheed ay tahay in dadka kale ku nool xamar iyo dowlad goboleedyada ay gaalo yihiin. xataa shacabka ku noolaa dhulkooda waxay gaalo noqonayaan haddii dowladda ay qabsato dhulkaas, maxaa yeelay waa qasab inay la tacaamulaan maamulka. ma waxaas diinta islaamka? ma waxaas shariicada islaamka? culimmada maafiyada waxaan ku leeyahay, qof walba aayado iyo axaadiis uu u daliishan kara, laakiin taas macnaheed ma ahan in fahamkiisa uu saxsan yahay. khawaarijta waxay daliishadeen waa kitaabka Alle, saas ay tahay nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo caddeeyey inaysan waxba ka fahmaynin. idinkana jidkooda ayaad raacdeen. intay goor ay goor tahay ilaahay u toobadkeena, joojiya luminta dhallinyarada islaamka iyo odayaashooda. halkan ayaan ku joojinaynaa maanta, laakiin waan sii wadi doonaa insha Allah ilaa aan burburiyo dhammaan shubuhaadka maafiyada xarakatu shabaab almufsidiina fi ddiini wadunya. waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkan faafisaan si ay shacabka Soomaaliyeed u fahmaan xaqiiqada maafiyadan. ilaahay hanaga qabto shartooda. walaalkiina Zubayr al-Muhaajir.